horta diftaax saakay intaan magaalada kasoo bixin waxaa kusoo dhacay degantaada aad u waaweyn oo magaalada Kiev aad u soo weeraray Ruushka marka taas oo u shaahisay in dadka halkaas jooga dhammaan ay kasoo wada baxaan inta aan soo gaadhin Ukraine xadka uu leeyahay Poland waxaa la kulmay waxa kamid ah in dad badan ee dalkaas ay kasoo baxay ay ku soo jeedo Poland si macnaha halkaas nabadgelyo ugu helaan gaashaan ay ugu noqdaan intaalada halkaas ku dhacaya iyo dhibaatooyinka loo geysanayo shacabka reer Ukraine marka inta aan soo soconay waxyaabaha aan la kulmay indhayga ay qabanayaan waxa Poland in cunsurinimo lagu sameeyo Afrikaanta oo dadka madow waa gartay waxyaabaha indhahadu arkeen oo dadka Afrikaanka oo Soomaalida ku jireen maxaad noo sheegi kartaa oo bini'aadanimada ka baxsan waxyaabaha bini'aadanimada ka baxsan ee ciidamada Poland ay ku dhaqmayaan Afrikaanta waxa kamid ah in dabcan dadka cadaanka la soo hormarinayo marka la fiiriyo Afrikaanta Sooglotiga ee dalkaas Ukraine joogtay iyo dadka u dhashay isku midab ma ahan dadka waxa la soo hormarinayo mar walba ee dalka Ukraine u dhashay ayadoo taas ay cadeynayso in meeshaas ay ka jirto cunsurinimo hataa waxa loo dhaqmaa si ka baxsan bini'aadanimada ayagoo ku tilmaamaya daanyeer hataa muuqaalada qaar waxay qabanayaan iyagoo loo soo turayo moos waxyaabo cunsurnimo ah qofka hataa waxaa la taabanayaa ciidamada Poland waxay sameynayaan qofka jirkiisa inay taabtaan macnaha ayagoo fiirinayo in qof uu tartiibi karo waa meesha ugu dambeysay cunsurnimo marka la fiiriyo waxa cunsuriyada ku dhaqaaqayo ma ciidamada Poland u dhashay oo xadka jooga falkaas cunsuriyada leh oo saxaafada ay aad u hadlayso cid geysanayso marka la fiiriyo labada dhinac horta waxa ugu daran waxa taa waa ciidamada meesha jooga xadka inkastoo dadkan ay soo wada qaxayaan la wada siman yahay wadankaasna loo doonayo nabadgelyo marka waa ciidamada xadka jooga 90% kuwa cunsurinimada ku kacay oo kuwaas oo ay dareensina Afrikaanta in dadkan kala cadaanka ay ka muhiimsan yihiin kuwaas oo ayagana ay sameynayaan in dadka cadaanka marka hore la soo dhaweeyo kadib dadka Afrikaanta ah sidoo kale cunsurinimada marka fi labada dhinacba way kala kulmaan Afrikaanta laakiin saxab ugu daran ciidamada xadka jooga kuwaas ugu daran maadaama ayaga wadanka xadkiisa ilaalinayaan ayaga looga baahan dadka inay soo dhaweeyaan inkastoo hadda ay wanaagsaneed in Afrikaanta la soo hormariyo maadaama dalkooda uusan ahayn laakiin ayaga waxay ka doorbideen in dadka Ukraine u dhashay in ay soo hormariyaan marka diftaax dadka cunsurinimada ku kacay waa ciidanka inta badan ayadoo la gaaray shacabka Poland adiga dadkii basaskaas soo wada raacdeen oo Ukraine u dhashay intii soo saaran safarkan aad ku soo jirtay mala kulantay wax oo falxun badan kuula kacay mise dadka reer Ukraine way ka wada sameeyeen waxa taagan oo bini'aadanimadana sidoo kale way eegayeen horta diftaax marka la fiiriyo ani ahaan wax fal cunsurinimo ah mis fal aniga iga xanaajiyo kula kacay malahan marka qof walbana markii xaalad adag uu ku jiro waa marka kaliya dadka ay isgarabsadaan marka shacabka Ukraine iyaga hadda ma sameyn karaan cunsurinimo maxaa yeelay wadankooda ma joogaan waa way ka soo baxayaan wadanka loo diriska ay waxay kareen nabadgelyo marka qof asiga baan nabadgelyo raadinaya ma sameyn karo cunsurinimo taasaan sahashay in Afrikaanta iyo Ukraine dhamaantood si walaalo ah ay soo wada baxaan ee wadankan ugu soo hajiraan si nabadgelyo u helaan maxaa warbixin oo ka heesa ardaydii galaaska kulligeennisa ee dalkaas u dhashay Ukrainiyiinta ah iyo dadka Soomaalidaba maxaa xog ka heesa wax communication ama xiriir ma sameynayeen hadda inta aniga ugu maqaalka ah 20 arday oo Soomaali ah oo fasalka nal dhiganeysay ilaa hadda nolol geer lagu maahayo inkastoo hadda la sheegayo gantaaladiina wax ka soo gaareen oo caasimada lagu garaacay ilaa hadda jaani meesha dhigan lama ogo inkastoo wadankaasi dad fara badan ay ka soo wada baxeen marka taasaana keenayso in xog rasmi ah laakiin hadda anaga aan kala fiiriyo fasalkeena 20 arday ah ilaa hadda nolol geer kuma hayno haddii baraha bulshada ku jirtay wararkii ugu dambeeyay ee wadahadalaha fashilmaan leeyahay oo Belarus ka socday maxaa sababay wadahadalada inay fashilmaan ma qodobo la isku mari waaya jiro maadaama adiga naga xog u laasan tahay meeshan aad joogto horta waxyaabo fara badan horta waa jira diftaax Belarus horta ciidamadooda in Ruushka xaggooda ay ku biiraan way diideen madaxweynaha wuxuu dhahay arrinta dhaxdhaxaada ka noqonaya maadaama xad uu leeyahay labada dalba marka taasaan saashay in wadahadaladii ay fashilmaan Putin sidoo kale qof wax ka maqlaaya malaha marka la fiiriyo inkastoo xiisadan ay sii horinayso ururka NATO hadii NATO ay ka baxdo arrimahan Israel ay kala baxaan walaga yaabaa in labadan wadan heshiis ay gaaraan inkastoo madaxweynaha dalka uu mar hore u dalbaday in wada hadal iyo xabad joojin la sameeyo laakiin si wili Ruushka ka dhaga adeegayo taasaan sahlaysa in wadan walba faraha uu san la soo galay arrintan marka Belarus way isku dayday in wax halkaas ay ka sameyso laakiin wili dib qorshe ka wadaan oo wili wax cad meeshan ka soo bixin labada dhinac marka la fiiriyo safarkaadii oo soo bilowday shalay galinkii hore oo maanta ku soo gaartay dalka Poland markii meesha aad soo gaarteen ma hesheen waxyaabo asaasiga ah
dadka isku mid maahan inkastoo falal cunsuriyad lasoo warinayo haddana qaabka la idin soo dhabeeyey maxaad nagu sheegi kartaa maxamed horta qaabka noola soo dhabeeyey Cabdifataax markii la fiiriyo horta qaab qurux badan moosan ahayn laakiin hadda markii la fiiriyo ciidamada Poland iyo dhammaan shacabka dadka soo glootiga ah waxay u fidinayaan gargaar ayagoo siinay raashin meel ay isticmaalaan welina waa socota hoos oo dib u dejinta lagu sameynayo qaxootiga hadda u galay wadankaasi Poland laakiin si weli wax cad ah oo weli dadka looma sheegin shacabka laakiin hadda waxaa la siiyay waxay ku noolaan lahayn iyo sidoo kale halka deegaan ahaan u noqon lahayd taas oo keenayso in dhabarka dhagahooda soo gaarayay dhibaatadii in hadda dib looga nasanayo maadaama wadankii laga soo baxay haatana Poland lagu sugan yahay adeeg asaasi way sameeyeen laakiin ma aan sidii la rabay hadda Poland aad joogtaa maxaa ku qorshe adiga horta Cabdifataax ahaan qorsheyga marka la fiiriyo waxa ay qorshe ah inkastoo hadda jaamacadii lagu kala tagay oo meesha dagaal uu ka qarxay haatana colaadda marka la fiiriyo Kiev aysan ahayn aad u wanaagsan oo laga diirinayo marka ahaan qorsheyga wuxuu yahay maadaama nafteeda ay badbaaday waxaa rabaa in isku dayo in Poland ka sii tilaabo inkastoo ay adag tahay in Poland laga tilaabo oo asigana qaxootiga wadankaas soo galay oo u qabtay 2 isbuuc oo kaliya dib u laaban doonaan dalka Ukraine marka ahaan qorsheyga wuxuu yahay in isku dayo in ka tilaabo inta xiisadan ay ka digayso inkastoo hadda wadamada Yurub kala fiiriyo ay kala xiran tahay cabsina ay jirto ciidamadan heegin la geliyo xuduudaha joogo taas oo laga cabsanayo in wadanba wadan kale uu soo tilaabo marka haddii xiisadan ay degto waxaa i qorshe ah in Yurub taas kale hor u sii galo si nolosheeda u sii horumariyo maadaama jaamacadii fashil ay noqotay guulayso aad u maastaa